muuqaalkii aan xalay soo geliyay ee aan uga hadlayay Google kaamirada oo ah kaamirada ugu wanaagsan ee ay la soo degi karaan dadka taleefanada Android-ka wata ilaa xadna ay uga maarmi karaan taleefanada iPhone-ka kaamiradooda ayaa su'aalo badan ayaa ka yimid. muuqaalkan ayaa muddo 24 saac ka yar waxa ku daawatay dad ka badan nus milyuun qof. su'aalihii ugu badnaa ay ka yimid waxa weeye walaal linkiga aan noo sheegtay meeyay, walaal halkii ayaan kala soo degnaa, walaal muuqaal kale ma ka soo duubi kartaa oo aad noogu sharaxaysid. marka ugu horeyso walaalayaal muuqaalkaas linkigii aan idinku sheegay in aan soo gelin doono commentiga sida aad aragteen aniguna aan mar dambe ku baraarugay commentiga TikTok lama soo gelin karo linki dhameystiran. marka hadda ayaan isku dayayaa in aan si tilaabo ah idinku sharaxo Google Camera sidii aad ula soo degi lahaydeen. Google Camera waxa laga yaabaa in aadan si caadi ah uga helin Play Store iyo xataa meelaha kale ee laga helo applicationada la soo jabsaday sida APK Viewer-ka iyo AC Market-ka. inta aanan sharaxaad bilaabin arrin yar oo noo wada muhiim ah ayaan rabaa saaxiibayaal inaan idin la wadaago. inta aad social media ku jirtid ama internet-ka ama noloshaada guudba weligaa wax kugu cusub oo markaas ay kugu horeyso hadhihin waxaan waa run sidoo kalena hadhihin waxaan waa been. isku day waxaas inta isdijisid in aad soo baartid Google gareysid YouTube ka baartid dad kalena aad soo weydiisid. dad badan ayaa xalay waxay soo qoreen walaal maxaa beenta noogu sheegaysaa. walaalayaal ma jirto sabab aan been idinku sheego intaan halkaan soo fariisto oo soo labisto oo camera aan soo rakibto oo microphone aan ku dhagsado sabab aan been idinku sheego ma jirto. laakiin idinka ayaa fahmi waayay mowduuc sida uu ku socdo hadda ayaana tilaabo idinku sharaxayaaye la socod wanaagsan. marka walaalayaal sidii aan hore idinku sheegay TikTok iga yeelimayo commentiga in aan soo geliyo link dhameystiran laakiin fallaartaas aad u jeedaan qoraalkaas ay ku beegan tahay ayaa si caadi inta u qaadid Google-ka ku qoraysaa. yacni qoraalkan qoraal fara badan maahan. qoraalkan ayaad waxaad ku qoraysaa Google-ka deedna website-ka ugu horeeyo ee ku soo baxa ayaad ku dhufanaysaa. website-kan waa website Brazilian luqadda uu ku qoran yahay in aadan fahmin ayaa laga yaabaa oo luqadda wadankaas looga hadla ay tahay Portuguese ama Spanish muhiim ma ahan laakiin waxa muhiim ah inaad tilaabooyinka xabad u raacdid. markii aad website-ka gudaha u gashid waxa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay download markii aad ku dhufatid waxa ku soo baxaya shirkado badan oo taleefanada soo saar sida Samsung-ka, Huawei-ga, Xiaomi-ga iyo wixii la mid ah. marka shirkadda aad adigu taleefanka ka wadatay ayaa ku dhufanaysaa. tusaale ahaan Samsung oo kale deedna waxa sii dooranaysaa Samsung-ka kii uu ka yahay taleefankaagu ma A10 ba ma A52 iyo wixii la mid ah. deedna markii aad gudaha u sii gashid taleefankaaga ayaad waxaad oranaysaa download waxa ku soo baxay yani version-iskii kaamirada download ayaa leedahay. haddii uu ku soo baxo magaca Strike markii aad install gareynaysid kaamirada wax dhib ma lahan caadi u install gare deedna isticmaal. saaxiibayaal waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto mar labaad iyo mar saddexaad idinku codsanayaa in aad subscribe saartaan kanaalkayga YouTube-ka waxaad ka helaysaan profile-kayga TikTok-ga. waa mahadsantihiin guuleysta.